kooxo hubaysan ayaa xalay ku dilay degmada Hodan haweeney lagu magacaabayay Cibaado Cabdi Maxamed waxaana da'deedu ay u dhaxaysay 70 ilaa 80 sano jir. haweeneydan ayaa ka tirsaneed ururada haweenka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxaana maamulka degmadaasi uu sheegay inay ku raajoogaan kooxahaasi dilka geyso baxsaday. hooyo Cibaado waxaan bishii hore ee Maarso kula kulmay degmada Hodan waxaana xilligaas ka wareystay xaaladaha kuleelaha ee bilaha Maars iyo Abriil ee Muqdisho. aad iyo aad baa loo kulul yahay Soomaaliya maanta meel ay joogto waa kulushahay habeenkii guryaha maba la seexdo banaanka la seexda caruurta qodada iyo quraacda markii la siiyo waa wada shumaan kuleel daraadiis la shumaan sidoo kale kooxo hubaysan ayaa isla xalay degmada Dharkeenle ee Muqdisho ku dilay qof dumar ah halka mid kalena ay ku dhaawaceen waxaana labadan haweeney ay shaqaale hoosaad ka ahaayeen xafiiska hay-adda UNHCR ee Muqdisho waxaana lagu kala magacaabayay Fawziya Xasan Cilmi Barqadle oo ah hooyada 3 caruur ah oo ku noolayd Muqdisho waxaana ay u geeriyootay rasaas ay dablay mooto wadatay ku fureen iyadoona dhaawacay ka soo gaareen rasaastaasi walaasheed Shankaroon Xasan Cilmi oo ay wada socdeen iyo wiil dhalinyaro ah oo mooto bajaaj ku waday waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. toddobaadkii la soo dhaafay waxaa Muqdisho lagu diray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad shicib ah. ammaanka Muqdisho waxaa la wareegay mas'uuliyadiisa maamulka gobolka Banaadir tan iyo markii uu la wareegayna waxba iskama bedelin ammaanka Muqdisho waxaana soo kordhay dilalka noocan ah oo shaqaalaha hay-adaha kuwa dawladda iyo saraakiisha ciidanka lagu bartilmaameedsanayo iyadoo xisad mudan tahay in Muqdisho ciidamada dawladda ay ka wadaan howlgalo baaritaana oo dadka iyo gaadiidka inta badan lagu baaro. Cabdinaasir Maxamed Cali Home Cable TV Muqdisho.